haddii aan ku yidhaahdo halkan waa Maraykan ma rumaysanaysid oo waxaad moodaysaa goob dagaal ka dhacay. marna laysma lahayn magaaladii maalqabeennada ayaa wakhti yar ku shuf beelaysaa. Los Angeles waxay isku sheegi jirtay meel aan waxba uga baahnayn dunida kale, waxayna ahayd hamiga qof walba oo ku biira milyaneerada Maraykan. magaaladan waxay gabaati u ahayd jilayaasha caanka ah iyo fanaaniinta dunida. habeenkiina waxay isku beddeshaa meel cawayska caanku ah, balse iminka waa goob laga guuray oo laga cararay dab aan la garanayn meel uu ka imanayo. waa tan magaaladii oo la moodo meel aan weligeed cidi degin. ilaa shalay waxaa la daadguraynayay maalqabeenna akoomadoodu buuxaan oo lacagtoodii waxba ka tari weyday masiibadan dhacaysa. waxaana gubtay guryo ay lahaayeen dad caan ah sida guriga Kim Kardashian oo qiimihiisu dhammaa $75 milyan. gabadhan aad arkaysaan waxay dhex taagan tahay gurigeedii iyadoo inoo sharaxaysa sida yar ee hal mar wax walba isku beddeleen. masiibadan ku habsatay magaaladii Hollywoodka waa mid ka sii daraysa oo ku fidaysa magaalooyinka kale ee Maraykan. waana la bakhtiin kari la'yahay dabkan awoodda ku soconaya. So there's a new fire in the Hollywood Hills and I don't know, Mommy. I'm fucking scared. We're gonna go to Kate's, okay? ku soo dhawow supermarketka ugu weyn geyga Puntland, Al-Macruuf Shopping Center, oo aad ka heli doontid wax walba oo aad u baahato. si fudud u dalbo adigoo gurigaaga jooga. markaba ka qaado albaabkaaga hortiisa.